السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال ودا الصوماليي ووقت الدنبي طبعا waxa iga maqan alaabihii fooniska ahaa ee lagu duubayay fiidiyoga sida darteed kaamirada ayaa igu dhow. Waxaan idiin dayi doonaa fiidiyo yar balse waxaan ka hor dhigaynaa maalmaha waxa lagu dhagan in la yiraahdo Cabdi Iftiin. Cabdi Iftiin waxa lagu haystaa waxa uu sheegay diintu meel uga dhacay, dadnimadu meel uga dhacay, Soomaalida ayuu ceebay, isku dir ayuu sameeyay, gaalada ayuu nagu soo jeediyay ayaa la leeyahay oo lagu haystaa. sida darteed marka video yar ayaan soo qaadanayna. الله نحرسه مرحوم أحمد دولو مكاني وأنا المكاني فرسمني سمكاني جهد وكنت جيف كلامي طبعا عرور اللبحث ورجع مرحوم قديتي وكنا عند ذيك جنستنا ورجع يدقين وكاسا وحاول هاي بوس كان حلقة مرحوم كلهم وجيت الموجنا على الجدال يو جيت كان باور كان واستثار كسان ماشوا مرحوم كل بتوع الكاس الله نحرسه تعن haddaba soo dhawaada Soomaaliyeed, soo dhawaada meel walba joogtaan. waa daawateen oo malaynaa fiidiyogaas. Cabdi Iftiin maxaa lagu haystaa? maalin dhaweed waxaa lagu dilay meel yar ay aqbari weyne oday waayeela, Allah u naxariisto, si fool xun loo dilay, la gubay, la jarjaray, aad baan ugu wada xumaanay wallaahi. sida daraadeed Allah u naxariisto ninkaas ayaanu leenahay. waxaas ninkaas waxa loo xukumay rag gaarayo ilaa iyo 9 ama 8 dil toogasho loogu xukumay iyo xabsi daa'in intaba la isugu dar. waayahay haddaba waxa ka horeeyay ninkaas odaga ah Axmed Dowlo 2018 in la qabtay xamar waliba meel fog maahan xamar dhexdeeda lagu qabtay, la jarjaray, soo nool la gubay, bensiin lagu bilbilay, dab lagu day. dadkii loo soo xiray ninkaas ay gacan ku dhiglaha ah ee ilaa 3 gaarayo waxa loo sheegay oo shacabka loo sheegay in la xukumay. dabcan markii la xukumay maxaa dhacay? dadkii meeyeen xagee ku dambeeyeen? diya ma laga qaaday? xukun may dhamaysteen? ma la toogtay? ma isweydiiseen? ninka la yiraahdo Cabdi Iftiin oo soo noqonay. Cabdi Iftiin wuxuu sheegay in Soomaaliya fuquuq ka jiro, in dhibaato ka jirto, in xidgudub ka jiro. ma been ba inta 4.5 dib u akhri muxuu yahay 4.5 muxuu yahay? ku shaqeeyaa ma loo siman yahay dalka? dakhliga ma loo siman yahay? darajada ma loo siman yahay? waa maya. halka marka laga soo tago hadda kor baa 2014 in la hada umaleynaya baan tagay wadamada Carabta baan isaga haajiray, tahriib baan ku aaday. meel yar Yemen ayaan tagay. Yemen markaan tagay dhacdooyin fara badan ayaan kula kulmay oo lagu haayay Soomaalida, qaar dhalinyaro Soomaaliyeed, Soomaalida dhan maahan qaar